shirka baarlamaanada Afrika ee sanadkiiba 2 jeer lagu qabto dalkan Koonfur Afrika ayaa ka furmay xarunta baarlamaanada Afrika ee Pan African Parliament ee ku taala magaalada Johannesburg. sanadkan shirka waxaa looga hadlayay arrimo la xiriira dhibaatada ka jirta qaaradda Afrika. sidoo kale shirka baarlamaanada Afrika ayaa looga hadlay tacadiyadii ka dhanka ahaa aadanaha ee loo geystay dadka ajaanibta ah ee ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika ee u badan qaaradan Afrika. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo kamid ahaa wafdigii lagu casuumay shirka baarlamaanada Afrika ayaa sheegay in dawladda Koonfur Afrika ay xil iska saarto walaalahooda Afrikaanka ah ee jooga dalkooda lana xakameeyo ajaanib naceebka ku soo laalaabtay dalkan Koonfur Afrika. dhanka kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalkan Koonfur Afrika ayaa sheegtay in dawladda Koonfur Afrika ay sarraali ka ahayn rabshadihii dhacay ee ajaanibta lagu beegsanayay balse waxay sheegtay in aan lagu tilmaami karin marnaba ajaanib naceeb. haatan dawladda Koonfur Afrika ay qaadatay tallaabo adag oo lagu kala saarayo dadka dambiyada ka geysta dalkan Koonfur Afrika dhawaanna ay ka soo saarayaan warcad. markii uu shirka soo idlaaday ayaa TV-ga caalamiga Universal waxa uu weydiiyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya u matala Pan African Parliament waxyaabihii looga hadlay shirka. waa kan Cabdicaziis Cabdi Xukun oo kamid ah xildhibaanada dawladda Soomaaliya. waa ka duwan yahay shirarka hore ayaan soo maray marka loo fiiriyo maxaa yeelay waa markii ugu horeysay madaxweyne East Africa oo muddo adugu maaqan 2 sano uu noo yimaado halka uu noqdo marti sharaf maadaama mar walba shirka markuu furmaayo laga marti qaado madaxweynaha Afrika. nasiib wanaag maanta waxaa marti sharaf noo ah shirkan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta runtii wuxuu ka jeediyay halkaas maanta shirka markuu furmayay khudbad aad u dheer oo muhiim ah oo runtii macno leh oo dhinac walba taabanaysay midnimada Afrika, horumarka Afrika, maxaa la yiraahdaa xasilooni darrada iyo amni darrada ka jirta deegaanka aan annagu ka nimo. intaa kadib madaxweynaha baarlamaanka Afrika laftigiisa ayaa khudbadiisu wuxuu ku furay dhibaatooyinka ka jira dalkan South Africa oo dadka ajnabiga ee Afrikaanka ay la kulmaan ama maarata dhacaya boobka loo geysto. madaxweynaha baarlamaanka Afrika laftigiisa khudbadiisa kamid ah aad bay arrintan u taabanaysay. intaa kadib sidoo kale xildhibaanad sareedo oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanada Afrika uga qayb gala Soomaaliya sanad walba ayaa baarlamaanka Soomaaliya madaxda ugu sareysa waxay ka codsatay in ay ka soo qayb galaan shirarka waaweyn ee baarlamaanada Afrika ee lagu qabanayo dalkan Koonfur Afrika si kaalintooda ay uga qaataan. marka waxaan u sheegayaa madaxdayda dalka Soomaaliya waxaa ku shiri doona halkan Afrika oo dhan. waxaan u sheegayaa speakerkayga inuu ka soo qayb galo shirarka Pan African Parliament speakerada Afrika meesha ku shirayaan. xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxmuud ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee shirka baarlamaanada Afrika ay uga soo qayb galaan ay tahay in calanka Soomaaliya marnaba laga weynin saaxada caalamka isla markaasna ay u doodaan xuquuqdooda Soomaali ahaan. Idrus Abdi Hassan, TV-ga caalamiga Universal, xarunta baarlamaanada Afrika, Johannesburg.